dabada qaybtan waa qaybtis afraad wararka waxaa dhinaca dunaasiyada waa kowdii bishii koobaad 2022 mar kale barnaamijkeeni falaqaynta wararka dhinaca dunaasiyada sanad hagaagsan daawashana qiimaha leh aan ku bilaabo qaybtis markaan ugu horeysiyo maalin walba laba qaybood ka daawan doontaan Horfadhi TV halka Horfadhi Media laba ka daawan doontaan waana markaasi mid kamid ah barnaamijyada adeegyo soo kordhinay Horfadhi Media iyo warbaahinta Horfadhi Media Group ninka loo yaqaano markaas aqoonyahanka islaamka scholarka Sheikh Yusuf Al-Qaradawi gabadhiisii oo ku xidhnaa dalka Masar sabab la xiriira aabaheed ayaa ugu dambeyntii laga soo daayay xabsiga dalka Masar. Gabadhan ayaa waxay ku eedeysneyd inay ka tirsan tahay ururka uu ka yahay madaxda sarsare aabaheed ee Ikhwan Muslimiin waxaana ay muddo ay u xidhneed dowladda Cabdul Fattah Asiisi kuwaas oo ayaga ay ku eedeeyeen inay aabaheed la shaqeynaysay. Si kastaba ha noqotee dad badan ayaa arkayay in gabadhaasi oo la xiray bishii June 3keedii 2017 ay u muuqatay in kaliya loo xiray in aabaheed uu kamid yahay madaxda sarsare. Ola Al-Qaradawi waxa ay la sheegay in loo soo daayay kadib markii dambiyadii lagu soo eedeeyay oo dhan lagu waayay. Waa qofkii ugu horeeyay Ikhwan Muslimiin lagu toonsan yahay la sii daayo ama xubnaha Ikhwan Muslimiin qoys la taasoo noqon doonta ayaa talaabadii ugu horeysay ee muujinaysa in wuxuu rajay ka hadhay dadka kumanaan iyo kumanaanka gaadhaya ururka ka tirsan ee xabsiyada ka buuxa dalkaasi. Saudi Arabia waxay qarka u saaran tahay inay saxiixdo maanta garinka dambe ama toddobaadkan waxa la yiri bilaabanaya Isniinta inay saxiixdo ayaa la yiri in ay la wareegto hay'adda Inter Milan kubadda loo yaqaano ama kooxda kubadda cagta ee Milan. Waxaa la sheegay lacag $1 bilyan oo dollar ay ku heshiiyeen waaxda dhinaca maalgashiga dadweynaha ee loo yaqaano Kingdom Public Investment Fund ama waaxda dhinaca maalgashiga dadweynaha ee dalkaasi sida uu sheegay wargeyska International Business Times IBT oo soo xiganayay saraakiil oo san magaciisa sheegin ayaa sheegay in bariyo ugu dambeeyay oo dhan Inter ay la dala dhacaysay lacag la'aan sida daraadeedna haatan ay ka faa'iideysanayso dhaqaalaha faraha badan ee Sacuudiga uu khasirayo waxayna sheegeen inay taasi ay si weyn wax uga tari doonto kor u kaca Sacuudiga ayaa doonaya inuu helo ilo kale oo dhaqaale oo aan ahayn ka shidaalka. Boqortooyada ayaa bariyo ugu dambeeyay oo dhan waxaa isbedel xoogan ku hayay Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz oo doonayay in aad wax loo bedelo. Haatan Ethiopia ayaa waxa ay mar kale u sheegtay dalalka reer galbeedka inaysan ka asmici doonin isma kaanaysan ka qaadan doonin hadallada dulmiga ah iyo kuwa kale ee malka dhaca ku madax banaanida qaranka. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Dina Mufti ayaa waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay warbaahinta dalweynaha dalkaasi ay dhamaantood lagu wada casuumay in aysan haba yaraatee aysan ogolayn habdhaqankii ugu dambeeyay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ka soo baxay kaasoo ahaa ayay yiraahdeen in uu gabi ahaanba ahaa mid aan rogan oo gabi ahaanba aan waafaqsanayn shuruucda intii aad arrimaheena dalka Ethiopia aad u qaadi lahaydeen meel saddexaad oo aad geeri haydeen isla markaana aad kala hadli lahaydeen Uhuru Kenyatta iyo dalal kale waxaad ku casuumantihiin isla markaana Google idii taala Addis Ababa annaga ayaana ka mas'uul ah dalkanada isla markaana waa inaad annaga naga macaamishaan oo kaliya ayuu yiri Mufti oo markaasi sheegay in aysan wax la qaadan kara ahayn in dal xor ah hay'adihiisu dhisan yihiin sidoo kale dawladda doortay ay markasta ay sheegaan reer galbeedku inay kala hadlayaan arrintaasi. Xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan hadeerta tagay soo qoray in uu la hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isla markaana uu kala hadlay arrimaha Soomaaliya iyo Ethiopia oo kala xajooday in ay Soomaaliya loo baahan yahay in dawladeedu ay qabato doorasho degdeg ah madaxduna ay joojiyaan colaadda halka sidoo kalena maamul goboleedyadu ka qayb qaataan dadajinta doorashooyinka halka Ethiopia uu sheegay in la joojiyo xabad oo waxba joojin degdeg ah la soobiyo sidoo kalena loo dhaqaaqo dhinaca wada hadallo togan. Si kastaba ha noqotee waxa ay uu sheegay afayeenkaasi in dawladdiisa lagu soo qaaday weeraro dhinaca qiyamka iyo dawladnimada ah balse iyadoo cadaadisyo aad u foolxun ay jireen haddana wasaaradda arrimaha dibadda dalku ay ka guuleysatay inay iska caabiso isla markaana sotida u qabato ayuu yiri dhaqdhaqaaqyo aad u foolxun oo ka dhan ah qaaradda iyo waliba dalkeeda. Haatan wuxuu sheegay inay qaaradda oo dhan ay ku baraarugsan tahay wuxuu ugu yeedhay jafafka iyo qadafyada ka imaanaya Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa barihii ugu dambeeyay waxaa lagu dhaliilay in habka uu u maamulayo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ku aadan qaaradda Afrika inaysan waxba tari doonin waxaana dadka qaarkood ay ku sheegeen in Uhuru Kenyatta ama Kenyatta oo aan cilaaqaad wanaagsan la lahayn Soomaaliya inuu arrimaha Soomaaliya kala hadlo taasna inay ahayd mid ka xanaajisay dad badan oo Soomaaliyeed. Baraha bulshada gaar ahaan barta Twitterka ayaa waxaa ka soconaya loolan aad u weyn iyadoo ay jiraan laba dad oo kooxaha markaasi injooya oo iyagu mar walba buunbuuninaya wararka ka imaanaya reer galbeedka iyo halka ay jiraan sidoo kale dad iyo warar
kale oo iyaguna ka imaanaya markaasi dadka kale ee wadaniyiinta oo kuwaasoo diidan gebi ahaanba faragelinta iyo weliba dhibaatooyinka halkaas ka soconaya. wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka Turkiga waxaa lagu dhaliilay hadal ka soo yeeray kaasoo lagu tilmaamay in uu u hadlay sidii qof aan academic ahayn ama aan aqoon lahayn. hadalkaas ayaa wuxuu yimid kadib markii wasiirka cusub bishii hadeerta December ay dhamaatay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan uu magacaabay wasiirka wasaaradda Nuruddin Nebati leeyahay uu sheegay in waaxda dhinaca kaydka dhaqaalaha ee dalka Mareykanka ee US Federal Reserve aysan iska lahayn dadweynaha Mareykanka balse ay iska leeyihiin wuxuu ugu yeeray qoysas maalqabeena. arrintaas ayaa waxaa si weyn u cambaareeyay dadka dhinaca dhaqaalaha ee adduunka aad ula socda. Isagoo ka hadlayay TV-ga CNN Turkey ayuu wuxuu sheegay in uu ogyahay in aysan waaxdaasi lahayn dadka weynaha dalkaasi laakiin ay leeyihiin kooxo iyo weliba qoysas sida Mareykanka dahgadashisa ka maamula dhaqaalihiisa. taas waxaa si weyn uga kololaaday ninka ugu caansan arrimaha dhinaca dhaqaalaha qaada dhigaha arrimaha dhaqaalaha ee caalamka oo isagu in weyn inta badan ka hadla arrimaha dhaqaalaha Timothy Ashd ee shirkadda Bluepay Asset Management loo yaqaano kaasoo ku tilmaamay in arrintaasi ay hoos u dhigayso qiimka dalka Turkiga gaar ahaan qof wasaaradda maaliyadda haysta. wuxuu yiri sidee ayaa wasiirka maaliyadda ama wasiirka dhaqaalaha ee dalka ku jira G20 uu u dhigi karaa ayuu yiri wax saas oo kale qashina. wuxuu yiri inay taasi tahay ayuu yiri ceeb Turkiga qabsatay. hase yeeshee hay'addan US Federal Reserve waxaa la aasaasay horta sanad 1913 waxaa jira markaasi hay'adda lafkeedu ay qirsan tahay in 5 shirkadood oo waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha iyo bangiyo oo ay kamid yihiin Rothschilds, Lehman Brothers, Lesser Brothers, Goldman Sachs iyo Warburg Cohen iyo Loeb iyo kuwa kale ay ku lug leeyihiin oo ay maalgashiyo iyo waliba ay ku leeyihiin galaangal aad u weyn. waana halka uu markaasi wasiir Nuruddin uu ku eedeynayo inay arrintaasi daaran tahay sida muuqata. daawashada qiimaha badan Hindiya waxay ku eedeysay Shiinaha in ay doonayeen in gobolka Arunachal Pradesh ay Hindiya u taqaano in ay qaadato kadib markii Hindiya ay aragtay ay yiraahdeen warmartiyeed dhinaca maabinka ama dhinaca taariikheynta khariidaynta oo ay soo saartay dowladda dalkaasi Shiina kaasoo gobolka Himalaya magacii horta ay ka bedelatay oo magac ay u bixisay. magac cusub ayay ugu walqashay oo leeyahay Sanganan oo dhinaca koonfurta Tibet baa loo soo gaabiyay si kale afka Shiinaha. waxayna sheegtay in ay magacii Arunachal Pradesh oo Hindiya siisay gebiyaha laga bedelay. sidoo kalena ay Shiinuhu soo saareen magacyo yaryar oo magaalooyinka iyo wadooyinka si khariidada dalka Shiinaha loo galiyo. waxaana ku tilmaantay arrintaasi duulaan aad iyo aad u cad isla markaana gobolka Himalaya ka dhali karta mar kale khilaaf iyo dagaal aad u culus. si kastaba ha noqotee afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Shiinaha ayaa sheegay in aysan ayagu aqoonsanayn wax la yiraahdo gobolka magaca ay u bixiyeen Hindidu si daraadeedna gobolkooda inay xaq u leeyihiin magacyada inay u bixiyaan iyo sidoo kale inay ku daraan maapka dhinaca Google iyo inay dhankooda macnaha Google-ka Mareykanka ma waa Google ayagu ay leeyihiin maabinka dalka Shiinaha ee Weibo iyo arrintaas ayay ku tilmaameen inay tahay mid iska muujinaysa ama ka muuqanaysa waxyaalaha ay ka mid ka tahay ay yiraahdeen loolanka labada dal bari ugu dambeeyay labada dal qariiq ay isku ahaayeen marka si kale loo eego. dhanka kalena dalka Mareykanka ayaa madaxweynihii Ashraf Ghani loo jiray baxsaday dalka si laga buriyay Afghanistan markii ugu horeysay waraysi dheer oo siiyay warbaahinta BBC-da ee qaybta dunida hadashay wuxuu ku sheegay in ay wuxuu ka dhacay isaga ku dhacay iyo dalka wuxuu ku dhacay oo ahaa mu'aamarad isaga lagu kaarta baxay laakiinse wixii dalka ka dhacay ahaayeen arrin aad fool. isagoo ku sugan dalka uu baxsaday isku tag Imaaraadka Carabta ayuu sheegay in marka oreysa uusan jirin wax lacag uu la goostay. dad badan ayaa ku eedeeyay in boorsooyinka faraha badnaa uu sitay ee lacag ku jirtay laakiinse wuxuu sheegay in uusan wax lacag qaadan. aniga lacagta maxaa ku falayaa ayuu yiri. waa dadka yaqaanada way yaqaanaan sida aan u noolahay iyo noloshayda in aan wax ugu filan haysto sidee ayaan lacag u galayaa ayuu yiri da'dan aan joogo. waxa uu sheegay in dalkiisa la galiyay dhibaato aad iyo aad u weyn. wuxuu yiri xaqii la bilaabi lahaa ayuu yiri hab dhinaca wada hadallo iyo wada hadal oo nabadgeliyo oo wada hadallo waxa loo yaqaan process dhinaca nabadgelyada ayuu yiri. bedelkii waxa la bilaabay ayuu yiri process ama waxa la bilaabay ayuu yiri hab ka bixitaan oo ciidamada Mareykanka ay ka baxaan. kadibna wuxuu yiri annaga iyo dawladdiiba waa nala tirtiray oo cagtana la mariyay. wuxuu ku tilmaamay in gabi ahaanba noloshiisii oo dhan ay burburiyeen iyo dhaqankiisii iyo sharaftii uu lahaa oo dhan Mareykanku kadib markii isaga ay ka dhigteen kuwa kuarta baxay markii dambe ay ka dhigeen iskii u cararay. wuxuu diiday in eedda ku saabsan in dawladda la nacay kadib markii musuqmaasuq aad fara badan ay samaysay. wuxuuna sheegay inaysan taasi xaq ahayn isla markaana cadaalad aysan hayn in ayaga kaliya
arrintaasi xoogga oo dhan lagu saaro daawasha qiimaha leh dhanka kale arrintaas qodobka ugu dambeeyaan kaga tagay waxa weeye weli dalkaasi waxaa ka jira dhibaatooyin aada u xoogan iyadoo qabow aada u daran uu dalka ka jiro ayaa waxaa haddana dhinaca kale sii soconaya ayaa la gaajada iyo darxumada caruurta waxaa la arkayaa caruur dumar ay xabaarsan yihiin oo aada iyo aada qabowga u taagan kuwaasoo raadinaya rooti iyo cuntooyin cunaan waxaana lagu eedeynayaa dhinaca taalibaaniyiintu ay ku eedeynayaan in Mareykanka iyo dalalka reer galbeedku ay diideen lacagta xayiran inay u soo daayaan dadkaasi halka sidoo kalena ay dowladaha reer galbeedku ay sheegayaan dhankooda in aysan Taliban la shaqeyn karin tan iyo inta ay ka soo dhalaalayso heshiisyadii ay kamid tahay xuquuqda ilaalinta dumarka iyo arrimo kale kuwaas ay ku tilmaameen inay u yihiin markaasi culaad arrimaha dhinaca dhaqaalaha Taliban ayaa dalbanaysa in lacag 9 bilyan oo dollar oo dalku leeyahay loo sii daayo si loogu maareeyo cunto la'aanta dalka ka jirta cunto la'aanta dalka ka jirta ayaa bariga ugu dambeeyay oo dhan waxay keentay walaac aad u weyn oo dadka haysata dabashada qiimaha leh intaan ku joojiyo barnaamijkeena waxaan rajeynayaa qaybtan inaad la socotaan sidoo kale aad raacdaan oo aad subscribe tirahdaan haddii aad rabtid in aysan kaa lumin qaybahan oo dhan waa inaad hubisaa hadeerta inaad gambaleelka furato sidoo kalena aad la socotid qaybtan laba qaybood oo warara oo marka wararka ugu xiisaha badan iyo wararka dalkeena ayaa inta badan Hurfadhi TV kusoo bixi doona dabashada qiimaha leh ballaarinta warbaahintuna idinkuna warbaahintiinii oo sii ballaaranaysa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa baliyooyinkaad noo soo dirteen runtiina mar walba inaad wararka falanqaysaan oo qaybaha hoose aad kaga hadashaan gaar ahaan arrinta Itoobiya iyo jawaabta kulul ee Itoobiya ay siisay Mareykanka oo kale see u aragtaan amaanaal